madaxweynaha dalka Uganda oo ka hadlayay shir sanadeedka garsoorka dalkiisa ayaa sheegay inay jiraan dalal badan oo aan lahayn hay'ado dawladeed oo shaqeeya waxaana tusaale soo qaatay Soomaaliya. madaxweyne Museveni waxa uu taasi ku diray inay jiraan dalal badan oo kale oo aan lahayn hay'ado dawladeed oo shaqeeya balse sabab diblomaasiyadeed awgeed aanu sheegi karin. Museveni oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yiri but there is no state. There is no organized authority over that land. Somalia is one example. There are quite a number of examples. For diplomatic reasons, I don't want to mention them. Uganda waxa ka jooga Soomaaliya ciidamo badan oo qayb ka howlgalka Midowga Afrika ee loogu magac daray AMISOM. madaxweyne Museveni ayaa sidoo kale marsi horeysay ku sugnaa magaalada Juba ee xarunta South Sudan waxa uu sheegay in South Sudan ay qarka u saaran tahay inay noqoto sida Soomaaliya oo kale balse hogaamiyaasheedu ay ka badbaadiyeen. Uganda waxay ciidamo u soo dirtay Soomaaliya sanadkii 2017 waxaana ku sugan yihiin gudaha Soomaaliya ciidamada dalka Uganda 12 sanadood. hadalka Museveni ayaa ka cadhaysay dad badan oo Soomaaliyeed iyagoo sheegay in hadalka noocan oo kale uu ka baxsan yahay heerka diblomaasiyadda caalamka. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa si kulul uga jawaabay hadalka ka soo yeedhay madaxweyne Museveni waxaanu ku tilmaamay hadalka Museveni qof iska qayliyay. wasiir Axmed Ciise Cawad wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya isagoo jawaab ka bixinayana waxa uu yiri waxaanu nahay dawlad jirta adduunka oo dhan aqoonsan yahay waana sababta hadda halkaan ula joogo wasiirka arrimaha dibadda Kenya marka qofkii iska qayliya qofkuna waxa ahaade isaga u taala